فيزا ولا واحد إذا مجلس diversity visa lottery لا يقنا وفيزا بختي أنا سيب لجوه له أو مارك لقصة أصلا أدوس الدراسية سنة في مريكان كوحكوسو قشة كنتم كل أوقاف يكسو قشة وفيزا لوجود هلاجري إن مارك كلا دوانا شها سوق لو في مريكان سوق ليه لو كر لو قابو فيزا نوع عسوية أنت بدنا وحى لو أديك سلا إلى كل مادان ودمدا عن ضد كبدني كسو جرين مريكان وقفتي مدحوينه دونالد ترامب waxa uu sheegay in waliba Congress-ka codsadeen sida ugu dhaqsiyaha badan ee barnaamijkaasi loo joojiyo maxaa keenay baad isleedahay madaxweynuhu in uu arintan uu yiraahdo waan ognahay in qofku yimisiisan dalka Mareykanka uu ka dambeeyay warar ka dhacay New York hadda waqtigii ugu dambeeyay hadaladan soo baxay ee laga hadlayo dabcan waxa kor u sii qaaday dhacdadii soo shaqeynay ka dhacday New York dadka maarkii baaskiilka wata shakhsiga 7 sano ka hor kusoo galay dalka Mareykanka viisahaas laariga oo dhibaatada ugu geystay laakiin marxalado kala duwan ay soo martay waqtiyaal kala duwan ayaa waxa ka hadlay dad mas'uuliyiin Mareykanka ka tirsan oo xisbiye kala duwan ka tirsan sidii wax looga bedel lahaa laakiin arrintan hadda maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay wuxuu salka uga dhigayaa qofkan soo galay dhibaatada ka geystay dalka Mareykanka gartay laakiin sida aad sheegtay hore ayaa arrintan doodii uga jirtay oo xilligii madaxweyne Barack Obama uu joogay ayaa jirtay in golaha Congress-ku ay arrintan ka hadleen iyadoo la leeyahay markaasi meesha dadka fiisahan ay ku imaanayaan baqtiya nasiibka in lagu bedelo dad xirfadlayaal oo aqoon leh in laga faa'iideysto dalka Mareykanka lagu keeno arrintan uu soo jeedinay madaxweyne Trump arrintaasi hore maxay kaga duwan tahay arrintaasi waa isku mid waxa kaga duwana laakiin waqtiga ayaa kala duwan waqtigii hore dadkii ka hadli jiray 2007 ilaa iyo intii ka dambeysay marar badan ay Congress ka hadleen bedelaadaas ama in la bedelo dadkii codsanaya waqtigaas waxay ku doodayeen macnaha dhinacyo kale ka fiirnayeen mar waxa ka mid ahayd in hay'ad ku samaysa baaritaan oo macnaha dalgal ku samaysa inay tiri waxaa sahlan in maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn loogu soo galo macnaha khayaano iyo wax noocaas ku dad soo isticmaalaya magacyo kala duwan inay ku soo galaan taas ayaa loo cuskanayay dadka kale waxayna soo jeedinayaan dadkaasi qaarkoodna in loo baahan yahay in lagu bedelo kan hadda madaxweynuhu maanta uu codsanayo la yidhahdo merit based isagoo qofka loo fiirinayo waxa xirfadda uu yaqaano iyo baahida dalka Mareykanka u qabo xirfadaasi taas ayaa maaragtay waxa kala duwan waqtiga iyo dhacdooyinka laakiin waxaad moodaa waxa la rabo in lagu bedelo ay ka wada dhawaajinayaan in isku mid yahay waa gartay marka sidee baad isleedahay marka hadalkan uu madaxweynuhu soo jeediyey iyo arrintii hore oo taagneed way dardar gelin kartaa in sida ugu dhaqsiyaha badan fiisahaasi uu wari dambe kaga yimaado ama loo meel mariyo in la joojiyo amaba lagu bedelo tan la doonayo inay dadku xirfadlayaasha lagu keeno dalka Mareykanka waa suurtagal waxa waaye arrintan waxaa laga yaabaa inay u noqoto biyo fadhiyada kuwa socdaa kiciya marka inay u noqoto launching pad ama maaragtay inay u galaato in hore tallaabo loogu qaado muddo dheer baa laga soo hadlayay in wax laga bedelo programkan waxaana ka hadlayay dad kala duwan oo ay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga gaar ahaana senator Schumer oo ahaa macnaha ka mid ahaa dadkii kow markii sharciga 1990 la soo saarayay shakhsigii macnaha ugu firfircoonaa waqtigaasi soo saaritaankiisa in 2000 iyo maaragtay 10 iyo 2013 ay dad dimuqraadiya iyo dad Republican isku jira ay isku soo arkayeen in wax laga bedelo programka ay tahay marka waa suurtagal in hadda dhacdadan dhacday ay macnaha attentionka ama maaragtay ay ku soo jeedisay intaha Congress-ka si wax looga bedelo dabcan madaxweynuhu codsiga wuxuu u soo jeedinaya waxay tahay waa sharci uu soo saaray Congress-ku Congress ayaana wax ka bedeli karaa ma aha sharci madaxweynuhu uu gadi ahaan iska joojin karo kaligiis